Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa qaybtii labaad ee qisadii Saciid ibnu Caamir al-Jumaxi ee dhegeysi habboon. Labadii khaliif ee rasuulka Ilaahay sallallahu calayhi wasallam waxa ay ku yaqaaneen Saciid ibnu Caamir runbadnidiisa iyo alla ka cabsigiisa. Waanadiisana waa ay qaadan jireen, hadalkiisana waa ay dhugan jireen. Waxa uu u soo galay Cumar ibnu Khadaab bilowgii khaliifnimadiisa, waxa uuna ku yidhi: Cumarow, waxaan kuu dardaarmayaa inaad Ilaahay uga baqato dadka dartood Ilaahay uga baqin, iyo inaanu hadalkaagu garab marin ficilkaaga. Hadalka ugu rooni waa ka uu ficilku dhabeeyo. Cumarow, ka warhay cidda Ilaahay hoggaanka kuugu dhiibay ee muslimiinta ah, kooda fog iyo kooda dhowba, lana jeclow waxa aad naftaada iyo ehelkaaga la jeceshahay, lana nac waxa aad naftaada iyo ehelkaaga la neceb tahay, iyo inaad xaqa awgii badaha u jiidho, allena aanad uga baqin mid wax canaanta canaantii. Dabeed Cumar radiallahu canhu ayaa yidhi: oo yaa awoodaya arrinkaas Saciidow? Wuxuuna yidhi Saciid: waxaa awoodaya nin adiga oo kale ah, oo ah cidda Ilaahay hoggaanka ugu dhiibay ummadda Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, isaga iyo Ilaahayna aanay cidi u dhaxayn. Intaa kadib, Cumar radiallahu canhu waxa uu ugu yeedhay Saciid kaalmayntiisa, wuxuuna ku yidhi: Saciidow, waxaannu kuu xil saarnay oo badhasaab kaaga dhignay reer Ximis. Wuxuuna yidhi Saciid: Cumarow, alle ayaan kugu dhaariyey, ha i fitnayn. Dabeed Cumar wuu cadhooday, wuxuuna yidhi: waar hooggiinne xukunka ayaad luqunta ii sudheen, waanad igaga baxsanaysaan miyaa? Ilaahay baan ku dhaartay inaanan kaa daynayn. Dabeed waxa uu madax uga dhigay Ximis, wuxuuna yidhi: mushahar miyaanan kuu qorayn? Wuxuuna yidhi: oo sideen idhaahdaa hoggaamiyihii mu'miniintow, siismada layga siiyo baytulmaalku baahidayda ayuunbay sii kordhinaysaa. Wuxuuna tegay Ximis. Muddo yar kadib ayuu hoggaamiyihii mu'miniintu u soo diray Ximis koox uu ku kalsoonaa oo reer Ximis ah, wuxuuna ku yidhi: ii soo qora magacyada fuqaradiinna iyo dadkiinna saboolka ah. Waxayna u geeyeen kitaab ay ku qoran yihiin Hebel iyo Hebel iyo Saciid ibnu Caamir. Dabadeed Cumar radiallahu canhu wuxuu yidhi: oo waa ayo Saciid ibnu Caamir? Waxayna yidhaahdeen: waa hoggaamiyahayaga. Wuxuuna yidhi: oo hoggaamiyihiinnu waa sabool miyaa? Waxayna yidhaahdeen: haa, oo wallaahi waxa soo mara maalmo badan oo aan gurigiisa dab lagu shidin. Dabadeed wuu ooyey Cumar radiallahu canhu ilaa ilmadiisu gadhkiisii qoysay. Dabeed 1,000 diinaar ayuu kiish ku riday una dhiibay, wuxuuna ku yidhi: salaan iga gaadhsiiya, kuna dhaha madaxweynihii mu'miniinta ayaa kuu soo diray hantidan si aad ugu baahi baxdo. Wafdigii ayaa soo gaadhay Saciid, una dhiibay kiishkii, wuuna eegay. Waaba lacag danaaniir ah. Waaba isagii oo iska fogeynaya oo ku dhawaaqaya: innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Sidii balaayo ku habsatay ama war naxdin leh loo sheegay oo kale. Dabeed afadiisii ayaa soo booday iyada oo naxsan, waxayna tidhi: maxaa kugu dhacay Saciidow? ma madaxweynihii mu'miniinta ayaa dhintay? Wuxuuna yidhi: maye, wax ka weyn. Waxayna tidhi: muslimiintii baa dagaal lagu jebiyey. Wuxuuna yidhi: maye, wax ka weyn ayaa dhacay. Waxayna tidhi: oo waxa intaa ka weyn ee dhacay muxuu yahay? Wuxuuna yidhi: adduunyadii ayaa ii soo gashay si ay aakhiradaydii u burburiso, fitnadiina gurigayga ayay degtay. Waxayna tidhi: dee haddaa isdhaafi oo ka takhallus, iyadoo aan war ka hayn danaaniirta.
wuxuuna yidhi, haye ma igu kaalmaynaysaa arrinkaa? Waxayna tidhi, haa. Dabeed wuxuu qaaday lacagtii, wuxuuna ku guray kiishash, waxauna u qaybiyey masaakiintii muslimiinta. Waqti badaniba kama soo wareegin markii uu yimi Cumar ibnu Khadaab radiallahu canhu dhulkii Shaam, isagoo u kuurgelaya xaaladahooda, wuxuuna ku degay Ximis oo loo yaqaan Kuufadii yarayd, maadaama oo ay Kuufa inta badan isaga ekaayeen dhanka cabashada badan ee ay shaqaalahooda iyo madaxdooda ka cawdaan. Markii uu degayba, waxa uu salaamay ehelkii, waxauna ku yidhi, ka warrama hogaamiyihiinna. Waxayna kaga cawdeen 4 dhaqan oo uu leeyahay, kuwaas oo midba midka kale ka sii weyn yahay. Wuxuu yidhi Cumar radiallahu canhu, waan wada kulansiiyey, waxaanan Ilaahay ka baryey in aanu hoojin malahaygii aan ka haystay Saciid, oo aad baan ugu kalsoonaaye. Markii ay ii wada yimaadeen iyaga iyo amiirkoodiiba, waxa aan ku idhi, maxaad kaga cabanaysaan? Waxayna yidhaahdeen, guriga kama soo baxo ilaa barqada ay gaadha mooye. Waxaanan ku idhi, arrinkaa maxaad ka leedahay Saciidow? In yar inta uu aamusay ayuu yidhi, maan jeclayn inaan ka warramo balse maadaama ay ka fursan weyday, waxa weeye ehelkaygu ma laha shaqaale, sidaa awgeed aniga ayaa subaxa hore u kaca oo u garaaca qooshka, waxoogaa suga inta uu faxayo, kadibna u duba, dabeed weysaysta una soo baxa dadka. Dabeed Cumar ayaa yidhi haddana, maxaa kale ee aad kaga cabanaysaan? Waxayna yidhaahdeen, habeennimadii qofnaba uma jawaabo. Waxa aanan idhi, arrinkaa maxaad ka leedahay Saciidow? Wuxuuna yidhi, isna maan jeclayn inaan ka sheekeeye, maalintiina iyaga ayaan siiyey, habeenkiina Ilaahay. Waxaan ku idhi, haddana maxaad kaloo kaga cabanaysaan? Waxayna yidhaahdeen, bil kasta maalin ayaanu nooba soo bixin. Wuxuuna yidhi, adeege ama shaqaale ma lihi, sidoo kale maryo aan xidhanahay ahayn ma lihi. Sidaas awgeed, bishii baan hal mar maydhaa, oo aan sugaa inta ay ii qalalayaan, dabeed waxaan u soo baxaa gelinka dambe. Waxa kale oo aan idhi, maxaa kale oo aad kaga cabanaysaan? Waxayna yidhaahdeen, wuu miir doorsoomaa marmar isaga oo nala fadhiya. Wuxuuna yidhi, waxa aan ka qayb galay dilkii Khubayb ibnu Cadiy, aniga oo mushrik ah. Waxa aanan daawanayay Quraysh oo googoynaysay jiidhkiisa, kuna odhanaysay, ma jeclaan lahayd in Muxamed meeshaada ku jiri lahaa? Isna uu lahaa, wallaahi ma jecli, xataa aniga oo bad qaba oo dhex jooga ehelkayga iyo ubadkayga. Muxamedna ay qodaxi muddo. Marka aan xasuusto iyo sababta aan ugu hiilin waayey, ilaa aan uba maleeyo in aan Ilaahay iiba dembi dhaafahayn awgeed, ayaan miir doorsoomaa. Intaa kadib Cumar radiallahu canhu waxa uu yidhi, Ilaahay baa mahad leh, aan hoojin malahaygii aan ka haystay Saciid. Dabadeed waxa uu u soo diray diinaar si uu ugu baahi baxo. Markay haweenaydiisii aragtayna, waxa ay ku tidhi, Ilaahay baa mahad leh, naga kaa kaaftoonsiiyey, ee noo gad alaab, adeegana inoo qabo. Waxa uuna ku yidhi, wax ka fiican ma doonaysid miyaa? Waxayna tidhi, oo maxay ah? Wuxuuna yidhi, waxa aynu siinaynaa cidda inoo timaada innagoo uga baahi badan. Waxayna ku tidhi xaaskiisii, oo sabab? Wuxuuna yidhi, Ilaahay baynu amaah wanaagsan amaahinaynaa. Waxayna ku tidhi, haa, Ilaahay khayr ha ku siiye.
kamaba uu tegin majliskiisii ilaa uu danaaniirtii kiishash ku riday, oo uu mid kasta oo ehelkiisa ahaa ku yidhi, u geeya gabadhii ninku ka dhintay ee hebla, iyo agoon hebel, iyo miskiin hebel, iyo fuqaradii reer hebel. Ilaahay raalli ha ka noqdo. Saciid ibnu Caamir al-Jumaxi waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwa naftooda ka doorbida dadka kale, iyaga oo iyagu uga baahi badnaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.